sheekh Cabbaas, sheekh Maxamed Aadam, sheekh Cabdishakuur Annadawi, sheekh Guuleed Cumar oo ka mid ahaa mas'uuliyiintii lagu soo maamusay tartan aqoomeedkan ayaa ka hadlay xafladan waxaana ay dhiirigelin u soo jeediyeen ardayda markaska Luqmaan Al-Xakiim. sidoo kale waxay dardaarana siiyeen waalidiinta ay ubadkooda u dhigtaan markaskani inaynu awlaadeenaas quraanka kula dadaalno, quraanka barashadiisa inay bartaan, inay quraanka xifdiyaan, inay quraanka hore u dhameeyaan, inay Ilaahay jalla wa ala kitaabkiisa laabaha ku qaadaan. waxay dhahdeen ilmaha quraanka baranaya waa ilmo afar sifo laga helay agagaarkiisa. horta waa inuu haystaa hooyo qalanqaalin badan oo hore u soo qalanqaalisa, hore u soo qaabisa, hooyo aad u qiimo badan, iyo aabba qooditaan badan, aabba wax bixin badan, iyo macallin qaariya oo quraanka si fiican u hay, iyo ilmo qaylo dheer oo quraanka sare u akhrinay. afartaas baa la yiri ilmaha hadee تقدم ولو خطوة للأمام وحدد مكانك نحو الهدف وعلم طموحك ألا ينام وعود خطاك بألا تقف. تقدم ولو خطوة للأمام وحدد مكانك نحو الهدف وعلم طموحك ألا ينام وعود خطاك بألا تقف. تقدم ولو خطوة للأمام وحدد مكانك